Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale kooraska farsamada baabuurta. Casharkeeni labaad. Casharkeen labaad waxaa uga hadli doonaa noocyada baabuurta. Waxaan inii soo jeedin doonaa anigoo Maxamed Faarax. Wixii jawaab celin waxaa noogu soo celin kartaan emailka shaashadani ka muuqda. Kooraskan waxaa ka daalacanaysaan ama kala socotaan Somalism Online Academy. Noocyada baabuurta. baabuur waa qalab la isku xirxiray oo loogu magacaabay baabuur kaasoo sameynaya dhaqdhaqaaq hore iyo gadaal ah. Waana mid loo isticmaalo gaadiid ahaan kaasoo kuu sahlaya inaad dhul indheer isku jira aad uga kala gooshto waqtiga kooban gudihiis, laguna kala gudbisto maciishadaha si loo gaarsiiyo halkii la rabay. Baabuurta waxaa loo qaybiyaa qaabab fara badan sida ayagoo laga eegayo muuqaalkooda, matoorkooda, noocooda, xawaarahooda, qaab istaagooda, socodkooda. Laakiin qaybinta ugu muhiimsan ee gaariyaasha waa in laga eego dhanka matoorka iyo qaabka uu awoodiisa u gudbiyo. Qaabka matoorka gaarigu u saaran yahay iyo tamar gudbintiisa. Marka laga eego qaabka matoorka gaarigu u saaran yahay iyo sida uu matoorku awoodiisa u gudbiyo, waxaa loo qaybiyaa setan. Inuu matoorku ka saaran yahay qaybta hore ee baabuurka, sidoo kalena awoodda uu gudbinayo labada shaag ee dambe ama afarta shaagba. Marka matoorku dhaqaajinayo labada shaag ee dambe waxaa lagu magacaabaa laba shaagle. Marka uu dhaqaajinayo afarta shaagna waxaa lagu magacaabaa afar shaagle. Baabuurka uu hore ka saaran yahay matoorka waxaa ka mid ah baabuurta yaryar ee raaxada sida markeydada, saarifyada iyo kuwa la midka ah. Waa kan tusaale ahaan gaarigan matoorka wuxuu ka saaran yahay qaybta hore. Awoodda wuxuu u gudbinayaa labada shaag oo hore, sidoo kale awoodda wuxuu u gudbin karaa labada shaag oo dambe. Qaabka noocan ah markuu matoorku awoodda u gudbinayo laba shaag, waxaa la yiraahdaa gaarigan laba shaagle. Ingiriis ahaan waxaa lagu dhahaa two wheel drive. Qaybta labaad inuu matoorku ka saaran yahay qaybta dhexe ee baabuurka. Waxa uu u dhaxeynaya labada shaag oo hore iyo labada shaag ee dambe. Waxaana u ooli karaa qaab dhinac ah, qaab gees ah ama qaab istaag ah. Waxaana tamarta u gudbinayaa shaagaga dambe. Sidoo kale wuxuu u gudbin karaa shaagaga horena u gudbin karaa. Mar wuxuu ku xiran yahay shaagaga hore ee gadaashooda, marna wuxuu ku xiran yahay shaagaga dambe hortooda. Meelahaas oo inta u dhaxaysa shaagaga hore iyo shaagaga dambe. Sidoo kale waxaa isticmaala qayb ka mid ah baabuurta yaryar, kuwa waaweyn sida basaska yaryar iyo qayb ka mid ah basaska waaweyn. Tusaale ahaan waa kan matoorkan hadda wuxuu ka saaran yahay gaariga wuxuu ka saaran yahay qaybta dhexe. Labada taageer oo hore buu ka dambeeyaa. Almuhim marka loo leeyahay matoorka qaybta dhexe ka saaran yahay waa inuu labada taageer hore iyo labada taageer dambe u dhaxeeyaa. Sida aan soo sheegnay markuu matoorku awoodiisa u gudbinayo laba taageer waxaa la yiraahdaa laba shaagle ama two wheel drive. Laakiin markuu afarta u gudbinayo waxaa la yiraahdaa four wheel drive ama all wheel drive. Hadda wax ku xiran tahay gaariga taageeradiisa. Inuu ka saaran yahay matoorku qaybta dambe ee baabuurka. Matoorkan waxa uu ka dambeeyaa shaagaga dambe ee gaariga, waxa uu u ooli karaa si dherer ah, si taag ah, si jiif ah ama si dhinac ah. Marka lagu leeyahay si dherer ah, si jiif ah, si dhinac ah, yacni waxay ku xiran tahay qaabka bastoomadu ugu jiraan matoorka. Haddii matoorka uu si dhinac ugu jiraan, matoorkaas wuxuu u oolayaa si dhinac ah. Si taag ah marka ugu jiraan waa si dherer ah. Insha Allah dhanka bastoomada iyo matoorka marka kala baran doonaa. Waxaana awoodda u gudbinayaa shaagaga dambe. Inta badan waxaa isticmaala baabuurta waaweyn sida kuwa safarada basaska dhaadheer oo kale baa isticmaala. Waa kan matoorkan gaariga wuxuu ka saaran yahay qaybta dambe. Sida aan soo sheegnay markuu matoorku awoodda u gudbinayo afarta shaagba, waa gaarigu hadduu afar shaag leeyahay waxaa la yiraahdaa afar shaagle ama all wheel drive baa la yiraahdaa ama four wheel drive. Intaba waa lagu magacaabaa. Qaab dhismeedka gaariga. Qaab dhismeedka gaarigu waa boodiga iyo caqaayadaha kuwaas oo ay ku xiran yihiin dhammaan nidaamyada gaariga ku shaqeeya. Waxayna muujinayaan qaab dhismeedkiisa baabuurka. Yacni boodiga iyo caqaayadaha oo la isku geeyay waxay muujinayaan gaarigan qaab dhismeedkiisa. Waana inta ay nidaamyada dhan gaarigu ku shaqeeyo waxay ku xirmaan boodiga iyo caqaayadaha ku xirmaan. Baabuurku wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo mid kasta ay leedahay shaqo u gaar ah. Marka aynu qeexno baabuur si dhaqso ah isku geyno, waxaan ugu yeernaa magacyo mid kasta gaar u ah. Tusaale ahaan brake,
motor, clutch, waxaa la oran jiray cambia iyo kuwa lamid ah. qaab dhismeedka baabuurka waa kan hadda intaa ujeedaan. waxaan ugu yeeri karnaa waa qaab dhismeedka caqaayadihii iyo bodigii baabuurka. casharkana maanta intaas ku egyahay. aad baa umahadsantihiin. insha allah waxaan rajeynayaa casharkan iyo casharka xiga inaanu ku kulmi doono. aad baa umahadsantihiin.